wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxa xaqiijinaya in intii yarada xalalta ka haysa halkaas in la cabsiyo khamro iyo daroogoyin intii aysan isqaawin ka hor oo aysan la dhicin kun madfac haddaba gabadhaasi Soomaaliyeed oo muslimada ayaa xalayta lagu bahdilay intii aysan kun madfac la dhicin shacabkeeda Soomaaliyeed gabadhaasi oo sida la xaqiijiyay oo wararka ka helaya hotelkii xafladaas lagu qabtay dad ka shaqeeya oo asxaabtayda ah ay xaqiijiyeen in gabadhaasi khamro iyo daroogoyin noocyadeeda kala duwan la siiyay intii aysan xafladaasi soo bandhigin oo aysan isku qaawin halkaasi gabadhaasi oo markii hore u muuqatay gabar asturan oo dharkeeda xiran ayaa waxa ay kadib markii ay ku dhawaaqeen kooxihii sharwadayaalka ah ee xafladda ka soo qayb galay ama qaar ka mid ah taageerayaalka dawladda loo yaqaano nolol iyo nabad oo isu bedeshay wasmo iyo khamro iyo daroogo iyo dhaqlayn ay ku dhawaaqeen lacagtanadii hanaloo celiyo haddii kale gabadhu kubkeeda naaskeeda barideeda iyo sabiishada waa inayna tuso ayadana daroogo inta la cabsabele ka baxay sil iyo futo iyo dabur meel walba soo bandhigtay ka baxay diintii ka baxay waa gabar khamro la cabsiiyey daroogo la cabsiiyey waa faa'iidadii nabad iyo nolol ku soo dhawow nabad iyo nolol dhaqle wasmo iyo ka baxay nabad iyo nolol dhaqleya ya salaam xalana sheekadu waa soo dhaaftay xeryaha amisom gabdhaheena la geynayay waa soo dhaaftay Lida Beach iyo Beriyan Balki hoteeladii waa soo dhaaftay bandhig dhilaysi bandhig khamreed markaas xubno qurba joog ah oo gal raacyo ah oo ka tirsan dawladda nabad iyo nolol waxay dhaheen caaburintii waa ka baxnay aga juglayntii waa ka baxnay waa xorownay waa dhammaaday waqtigiina loo aga juglayn jiray xoog baan leenahay waa tumanaynaa khamraan cabbaynaa waa dhilaysanaynaa waa gaaloobaynaa nabad iyo nolol dhaqda iska gura nabad iyo nolol dastuur khaniisnimo alkooleysta qorahaya culumadii waa lagu abaal furay culumadii waa lagu abaal dhacay culimadoo ka hadashay wuxuu war gabadh lug yar in yar qaawisay hadalkeeda maxaa keenay shabaabkan culimadoo ka hadashay wuxuu war gabadh lug yar in yar qaawisay hadalkeeda maxaa keenay shabaabkan dadkii laayay dhaxa abaarahan culimadoo ka hadashay wuxuu war gabadh lug yar in yar qaawisay hadalkeeda maxaa keenay shabaabkan culimadoo ka hadashay wuxuu war gabadh lug yar in yar qaawisay hadalkeeda maxaa keenay shabaabkan dadkii laayay dhaxa abaarahan intanina haysta maxaad uga hadli weyday عمي كاسو عمي والشاكين جامع إلى كوبكذا بريد الصبيح والله كحارة خاتم استيد لاندي